عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء. حمران وحلق الصوري تابعي قال لي هذا مولى عثمان موله سيئة ابن عفان. عثمان كاسوين عفان موله عثمان ويان وحلوغة شيدا عثمان با حرية لو شيدا وولاء وولاء عتاقة. عفان إلا صرفيو منصرف لقدقوا عفان اللي يلهدو عفان اللي يلهدو ما الله ينصرف لقدقوا الله بضبوا والله الشيء علماء قاربا مدبي مرين. أطي بعض أهل العلم يلهدين مركين لو يديون لقوا عفان ما منصرف بايو والله صرفين إياه والله تنوينين إياه مسمى منصرف معها أو ما لا ينصرف الصرف والله قم منعين إياه. وحيكون جوابين علماء قاركود إن مدحته منعته وإن هجوته صرفته. waxay yiraahdeen hadii aad amaanto aad magaca amaan ka dhigto min al-iffati in laga soo qaatay ila ifada iyo dhowrsoonidu waa amaan hadaad sidaa ka dhigto manactahu sarfiga waad ka mancinaysaa oo maxaa ku sugan di alif iyo nuun ziyaada aba ku sugan alif iyo nuun ziyaada ayaa markaa ku sugan calamnimana waa u raacdo wa in hajawtahu hadaad caydo aad tiraahdo min al-ufunati ba laga soo qaatay cufuunadu waa maxay waa qurunka weey oo taanuunku waa asal waxay noqonaysaa hal cillo kaliya ku sugan oo calamnimo ah ila ziyadatu alif wa nuun waa la waayay markaas min al-ufunati bay noqotay marka waxa fiican ilaha waa min al-iffati oo laga dhigo ma la yansarif afana da'a bi wudu'in wuxuu yeeray bimaana talbay bi wudu'in wax lagu weysaysto fa afraga ala yadayhi fa afraga wa kushbay oo wa ku afrogay afrogay waa erayga carabiga ahaa oo la Soomaaliyay afraga iyo afrogay qeynkii baa laga dhigay ga laga dhigay fa afraga waa ku shubay ama waa ku afrogay ala yadayhi labadiisa gacmood wuxuu ku afrogay min inaa'ihi xagga weelkiisa bihi ku jiray ayuu ku shubay gacmihiisa faghasalahuma waa maydhay labada gacmood 3 maraatin 3 mar ama 3 goor ayuu maydhay ثم أدخل دينا وحو قليا يمينه مدكتيسة في الوضوء بيه لقو ويسيسني وضوء يا وضوء باكالة شره وضوء وفعل كويسة لويسيسني التوضع وضوءنا وبيه لقو ويسقاضنا ثم أدخل دينا وحو قليا يمينه مدكتيسة في الوضوء بيه كويسقاضني ثم تمضمض انتهد بديد واللقلقضي وبيه بأفكك العلي يعني مج الماء في فمه واستنشق وصندرته بيه سنك كؤري واستنصر بيه هدنا سنك كالسودادي ثم غسل دوام ميري وجهيسا 3 قرب ميري ويديه لبدي سقعمود نوام ميري إلى المرفقين إلى لقاقارا الصحولة لقاقارا قعمها وحم ميري إلى الصحولة أيو ميري 3 قور أيو ميري ثم مسح انت دوام مسحي برأسه مدحيس أيو مسحي ثم غسل دوام ميري كلتا رجليه لبدي سيعد المدولو كم دبوحهم ميري 3 قور أيو ميري ثم قال دوحو يري عثمان باورنيا رضي الله عنه وأرضاه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وحنركي النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ حال ويسيسن يا أيان أركي وجملة حالية نحو وضوئي هذا نسخ قار ووغا وكردغين لكن waxay isku saxan tahay wudu in la yiraahdo wudu'i waynaga hore u kala sheegnay wuduuna inay tahay biyaha lagu weysa qaadanayo wuduuna inay tahay wowga marka la godo tawaddu'a oo ficilkii weysada la sameeyay ah nahwa wudu'i hada yani weysa shabahaysa weysadaydan oo kala shabahaysa ayu weysaystay nahwa macaani badan baa loo isticmaalaa نحو مروح الله استعمال قصدي مروح الله استعمال جهه مروح الله استعمال مثلي مروح الله استعمال جانب مروح الله استعمال عند يعني معاني بدن وكل الدوام بيلاده أرجع النحو هذا وحلوجة هذا النحو وضوئي أي مثل وضوئي هذا ويسوي سذا إذا لم يدو كلو ويسيسني وقاب كانوا ويسيسني يقاب لم يدو ويسيس معاني ذا النحو أيلاده هي أحاديث تصوص عطين وقارك لك وأركضونا إن شاء الله تعالى ثم قال دا نوح للنبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا
ku kastoo weysaystaa naxwa wuduu'ii weysaysigayganoo kale haadaa oo kan ah uma sallaa dabeedna tukada rakcatayni 2 ragcadood tukada labadaa ragcadoodoo laa yuxaddisu fiihimaa nafsah aanu naftiisa wax adduunye ah ugu sheekaynaynin oo aad ragcataynka ka sifayso ama faacilka aad ka xaalayso oo aad tidhahdo uma sallaa dabeedna tukada rakcatayni 2 ragcadood wuxuu 2 ragcadood tukaday xaal laa yuxaddisu fiihimaa nafsah aanu naftiisa waxba adduunye ah ugu sheekaynayn gufira lahu waa loo dembi dhaafaa maa taqaddama min dembih kii hormaray oo dembigiisa ka mida ayaa loo dhaafaa dunuubtiisii hormartay baa loo dhaafaya xadiiskan masaa'il badan baa laga qaadanayaa waa midda koowaadee waxaa laga qaadanayaa altacliimu bilficli dadka ficil ahaan in wax lagu baro oo tacliimtu waxay noqotaa bilqowli iyo bilficli ayay noqotaa waxaa kaloo laga qaadanayaa qaabka wanaagsanee loo weysaystaa inay tahay sidaa cusmaan sheegay weysada in la wanaajiyo la dhammaystiro ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya xubnaha la maydhaayo in gacmaha 3 goor la maydho wejiga 3 goor la maydho gacmaha ilaa mirfaqaynka 3 goor la maydho addimada 3 goor la maydho madaxana 1 mar la masaxo waayo masaxaddii madaxa la masaxayey 3 maraatin kuma qaydin agsarka axaadiistana waxaa ku soo aroortay nebigu sala allahu alayh wasalam 1 mar qura inuu madaxa masixi jiray ha yeeshe bacdu riwaayaat ama bacdu alaxaadiis oo aan quwo badnayn oo lagu soo wariyaa jira nebigu sala allahu alayh wasalam inuu 3 goor masaxay culammada qaarkood taasay cuskadeen waata kale waxay yidhaahdeen xubnaha kale la maydhaayana sida waafaqsani waa 3 goor asaaniidda riwaayaadka sidaa lagu soo wariyey culammada qaarkood ayaa xoogaa soo dhoweeyo yidhi dariiqyada qaarkood baa xasan ah waana sida sheekh albaani uu ku sheegaayo kitaabkiisa tamaamulminna fi tacliiqi calaa fiqhi sunna culammada muxadisiinta ee shaaficiye qaarkood waxay yidhaahdeen masaxaadda 3 goor inuu nebigu masaxay axaadiista ku soo aroortay waxay aqbali kartaa hadday sugnaato in looga jeeday markii hore inaanu gaadhsiinnin oo markii horena in ka mida madaxa u masaxay markii dambena in ka mida u masaxay oo sidaas yadaa ku sameeyey oo markii oo la kala qaybqaybiyoun inay tahay aqbali kartaa calaa kulli xaal siday axaadiistu u badan tahay waa in madaxa 1 mar keliya la masaxaayo waxaa kaloo laga qaadanayaa wejiga oo dhan in la maydho dhallinyarada qaarkood waxaa dhici karta markay weysaysanayaan weysada inaynay sixin wejigaa la maydhaya maxaa looga jeedaa dhegta halkaa yaree shaxmatul udun la yidhaahdo ee dhegta xagga indhaha ugu soo xigta ee yaree taagan ilaa halkeeda kale laga gaadhayo waa inay biyuhu gaadhaan lagu maydhaya foodda halka timuhu ka soo baxaan amaba timuhu ku yaalliin ama asaalatan timuhu ay ka soo baxaan ilaa lafgadheedana waa in la gaadhsiiya intaa waa in la wada maydhaa xadka wejigu saasuu noqonaya intaa wax ka mida haddaan la gaadhsiinnin oo halkaa yare dhegta ka sokaysa haddii aan la maydhin ay iska caddahay oo iska qallalan tahay weysadaad weysaysatay waxba kama jiraan waxaa kaloo laga qaadanayaa gacmaha marka la maydhaayo gacmaha ilaa mirfiqaynkaa laga maydhaya ama suxullada ilaa laga gaadho ilaadu waa haayo suxulladii ma ku jiraan maydhista la maydhaayo mise kuma jiraan saxdu waxay tahay inay ku jiraan marka ilaalmirfiqayni waxaa loo jeedaa macaalmirfiqayni baa loo jeedaa suxulladana waa in la maydhaa oo maydhitaanka la gaadhsiiyaa weliba halkaa waxaan baraarujinayaa marka la maydhaayo gacmaha maydhitaankaa waajibkaa ee wejiga ka dambeeya inta hore ee laga faraxashaana waajib weeye inaad markaa la maydhaa maydhitaanka marka hore farxalka weysada lagu bilaabaya waa sunne laakiin marka dambe intaa farxalka laftooda in la maydhaa oo gacmaha lagu yidhi maydhe yacnii gacmahana ilaa mirfiqaynka laga gaadhaa lagu yidhi maydhe ilaaba ilaa faraha iyo baabacada iyo xagga saraba iyo faraha dhexdoodaba waa in maydhitaankaa la maydhayo gacmaha ilaa suxullada laga gaadhaayo waa in markaa lala maydhaa waxaa dhacda dhallinyarada qaarkood inay marka hore faraxashaan marka dambena weysadii intay saa ku bilaabaan hadhow wuxuu maydhayaa uun intaa cukurrada kafka waa ka tegayaa yaa intaa saacidkee dhudhunka oo aan gacmaha inta hore ku jirin ayuu maydhayaa weysadaa waxba kama jiraan waayo waajib waxa ahayd gacmaha in la maydho ilaa mirfiqaynka laga gaadho gacmihiina maad maydhin ilaa mirfiqaynka laga gaadhayo maad maydhin maydhitaankaa waajibka ah ta hore farxalku sunnay ahay siday jumhuurka culammadu qabaan marka taana waa in saa lagu dadaalaa suxullada waa in lala maydhaayo maydhitaankii la gaadhsiiyaa oo nebigu sala allahu alayh wasallam markuu weysaysto wuxuu ahaan jiray oo uu gacmaha maydho ashraca filcadud
cududda dacalkeedana biyaha waa gaadhsiin jiray waa si waajibkii loo hubsado waa min baabi maa laa yatimu alwaajibu ila bihi fahuwa waajibu madaxa sida loo masaxayo axaadiista soo socota inoo sheegi doonta aynu ku arki doonnaa insha allahu tacaala labada addinna waa maydhay cuhmaan ibnu cafaan oo min 3 goor buu labada addinna mid waloo ka midaba uu maydhay dabeedna wuxuu uhi nebigu sala allahu alayh wasalam sidaa hadda aan u weysaystay si la midoo shabbahdaa ayuu u weysaystay dabeedna fadiil uu sheego wuxuu uhi man tawada'a naxwa wuduu'i haada uma sallaa rakcatayni laa yuxadisu fiihimaa nafsahu gufira lahu maa taqaddama min denbih ku kastoo weysaysta weysadaydan la midoo shabbahda naxwa waxaa loo jeedaa shibha ama misla uma sallaa rakcatayni dabeedna 2 ragcadood tukada faral iyo sunno kay doonan ha noqdaan labadaa ragcadoodoo aanu innaba naftiisa aanu adduunye ugu sheekayn aakhiro wixii ku saabsanaa in nafta ugu sheekeeyoy ku soo dhacdaa dhibi kuma sugna ee waxaa looga jeedaa min umuuri dunya haddii aakhiro iyo geerida iyo salaadda wanaajinteeda iyo qur'aanka tadabburkiisa iyo ashyaada noocaasa hadduu nafta ugu sheekeeyo yacni yada dhibi kuma sugna waa shay wanaagsan laakiin umuur adduunyaa loo jeedaa oo umuurta adduunya miyuu ruuxu iska wada ilaalin karaa waxay yidhahdeen culammadu waxaa kala jira xadiisu nafsi iyo khawaatir waswaso oo qalbiga ku soo dhacayso markiiba uu iska daafacayo oo dhaafaysaa oo aan ku hakanaynini waxba fadiiladan u dhimi mayso li'annahu maa xaddasa fiihimaa nafsah laakiin maxaa la diidayaa markay ku soo dhacaan nafta ay ku soo dhacaan iyo qalbigiis inuu markaa iska wado oo ku mashquulo oo istirsaal sameeyo oo iska sii raacraaco taasaa la diidaya laakiin wax adduunyaya hadday khawaatirta qalbiga ku soo dhacdo ow markiiba iska daafaco iska xidho waxba ka yeeli mayso khushuucdii salaaddiisina waxba u dhimi mayso fadiiladanna seegi maayo waa in mid nafta ku sugnaatay ay tahay oo nafta ugu sheekeeyey oo istirsaalay umuure adduunyana ay ku saabsantahy taasaa fadiiladii wax u dhimaysa labada arrin markay dhacaan in sidii nebigu u weysaystay loo weysaysto mar labaadkana 2 ragcadood la tukado labadaa ragcadoodna sifadoodu sidaa tahay oo adduunyo warkeed wax ku saabsan aan nafta loogu sheekaynin oo istirsaal lagu samayn la sii raaraacayo lagu daa'imayo labada arrin haddii la kulansado waxaa la helayaa gufira lahu maa taqaddama min denbih marka shardiga arrinkaasi ku dhacaya waa in labada arrin israacaan wain tarataba calaa shartayni shay'un fa bilxusuuli lishartayni saaxibulmaraaqi waa ka odhanayaa haddii 2 shardi shay ku xidhmo wuxuu ku dhacayaa shaygaa ku xidhmayee mashruudka ahi 2 shardi inay dhacaan oo wada xasilaan hadduu nin yidhaahdo xaaskiisa ku yidhaahdo in kharajti ila asuuqi wa kallamti fulaanan ama in kharajti ila asuuqi uma kallamti fulaanan fa anti taaliqun goormay furmaysaa suuqii waa u baxday laakiin hebel lamay hadlin ama hebel waa la hadashay oo guriguu soo hormaray laakiin suuqii umay bixin ma furantaad yaa maxay u furmi weydey 2 shardi baan israacin 2 shardi markay israacaan ayaa arrinkaasi ka dhalanaya uma marka weliba 2 shardi loo dhaxaysiyana waa inay sidaa u kala horraan dhaceen ghafara allahu maa taqaddama min denbih ilaahay wuxuu u dhaafayaa wixii hormaray oo dembigiisa ka mida ayuu ilaahay u dhaafayaa marka dunuubtii sakaa'irtii iyo kabaa'irtii labaduba miyaa loo dhaafayaa mise sakaa'irta keliyuunbaa loo dhaafaya jamaahiiru ahlicilmi waxay leeyihiin dunuubtii hormartay ee sakaa'irta abes baa xasanaadka lagu dhaafaa laakiin kabaa'ir laguma dhaafee kabaa'irtu tawbay u baahan yihin laga toobad keeno waana tii xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyey uu sheegaayey alcumratu ila alcumra wa salawaatu alkhams wa ramadaanu ilaa ramadaan mukafiraatun limaa baynahunna ida ijtunibat ilkabaa'ir acmaasha taacaadka ahi wixii dhexdooda dhacay oo dembiye baa lagu dhaafayaa oo ay baabbi'inayaan haddii kabaa'irta laga dheeraado marka dembiyada ay baabbi'inayaan maxay noqonaysaa sakaa'irtay noqonaysaa riwaayo kalena waxaa ku soo arooray maa lam tughsha alkabaa'ir aayadda qur'aankana allah wuxuu ku sheegay in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum siday jumhuuru ahlicilmi ku tageen waa sidaas yadaa weeye